Asalaamu calaykum sawirada asxaabta ku xiran kanaalka. Mowduuca maanta wuxuu khuseeyaa mowduucayaashii ka horreeyay ee taxanaha ahaa internetka. Waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha qaar ee keena culayska internetkaaga iyo qaabkaad ku xalin lahayd insha Allah. Ma ku aragtaa mararka qaar internetkaaga inuu culays zaa'id yahay asigoon weli lacagta ka dhammaan, ama marar qaar inuu iska baxo haddana dib u soo laabto? Waxaa laga yaabaa culayskaas inay keenaan waxyaabo badan. Waxaa ka mid ah jaajar in laga bixin internetkaaga. Sidoo kale waxaa laga yaabaa internetkaaga inaadan restart u dirin ama reboot weligiis. Waxay ka mid tahay waxyaabaha keeni kara culayska, waayo routerkaaga, telefonkaaga iyo kombiyuutarkaaga wax badan oo farqi u dhexeeya ma jiro. Routerka wuxuu leeyahay operating system u gaar ah. Routerka sidoo kale wuxuu leeyahay CPU, sidoo kale wuxuu leeyahay RAM, sidoo kale kombiyuutarkaaga dhammaan wuu leeyahay. Waxaa laga yaabaa asxaab cusub inaad u gelisid passwordka internetkaaga waxaa keedinaya routerkaaga. Haddii gudihiisa aad gashid setting aad ka dhex raadso, waxaad arki doontaa dhammaan device-yadii adiga passwordka hore aad ugu gelisay. Mar haddii ay bataan dhammaan device-yada ku xiran routerkaaga, sidoo kale waxaa badanaya culayska internetkaaga, waayo routerka waxaa looga talagalay specific limit. Sidoo kale waxyaabaha culayska u keeni kara routerkaaga waxaa ka mid ah meelaha la dhigo. Tusaale ahaan, inuu derbi ku dhegan yahay uusan helayn meel uu hawo ka helo. Hadda waxaad ogaatay qaar ka mid ah waxyaabaha culayska u keeni kara routerkaaga. Waxaan isla fiirin doonaa qaabka restart looga diro routerkaaga. Marka ugu horreysa waxaan tegaynaa Chrome. Qaybta search box waxaad ku qoraysaa 192.168.1.1 oo ah IP addresska routerkaaga. Kadib waxaad gelinaysaa passwordka adminka, kadib waxaad dhehaysaa enter. Waxaa kusoo bixi doona window noocan. Waxaad dooranaysaa maintain. Waxaad sii dooranaysaa device management. Hadda waxaa kusoo baxay meel ay ku qoran tahay device management. Waxaa ka hooseeya reboot. Waxaa kasii hooseeya factory restore. Haddii ay kaa qarsoon tahay waxaad dooranaysaa calaamadda drop downka, way kusoo bixi doontaa insha Allah. Hadda waxaa qoran reboot iyo restore. Waa maxay farqiga u dhexeeya labadan? Reboot iyo restart waa isku mid. Waxay la mid tahay adoo laptopkaaga restart u diray ama telefonkaaga bar button ka riixay kadibna restart aad dhahay. Restore haddii aad waxaa bedelmi doono passwordka internetka, magaca internetka iyo dhammaan waxyaalaha gadaal laga sameeyay. Internetka wuxuu noqon doonaa, routerka wuxuu kusoo laaban doonaa sidii asalkiisa hore. Sidoo kale waxaa laga yaabaa cilad inay kaaga timaado. Kaliya waxaan dooranaynaa reboot. Reboot markaan dhahno wuxuu weydiinayaa su'aal ah, are you sure you want to reboot the device? Kadib waxaan dhahaynaa okay. Sugaynaa ilaa waqti yar. hadda waxaa dhamaaday rebootinkii. Waxaan fiirinaynaa internetkan inuu ku xirmay iyo in kale. waad ujeedin mar kale internetka asaa soo laabtay, wuu ku xiran yahay, hadda wuu shaqeynaya. Sidoo kale haddii aad ka dareento internetkaaga inuu culays zaa'id yahay, steebida aad ku fududayn kartid waxaa ka mid ah in cableska aad ka bixisid routerka internetkaaga. Sidoo kale inaad ka bixisid fiilada powerka muddo ugu yaraan 30 second ama 2 daqiiqo ama aad sugtid, kadibna aad ku celisid fiilooyinka. waxaa laga yaabaa speedkiisa inuu iska bedelo. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan haddii ay tahay booqashadaadii koowaad ee kanaalka, wadaaga asxaabta. Sidoo kale ha ka ilaawin muuqaalka inaad like sarto, kanaalkana subscribe aad dhahdo. waxaa laga yaabaa inaad haysid fikrado ama mowduucyadii aad leedahay in laga soo hadlo. waa muhiim. intuu taxanaha internet ka socdo, fadlan commentiga hoose ku reeb.